madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wasiirada marti sharafta saraakiisha ciidamada kala duwan bismillaah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada kala duwan ugu horeeya janaka bilayska oo mujaahid ahaa oo magaalada janaka bilayska ee nabadgelyada inoo sugaa waxaan dhammaantood waxaan leeyahay ururka noow ka soo qaybgalayaasha saraakiisha halkan soo fadhida oo nimankii dalkan xoreeyay kamida dhammaantood waxaan ku salaamayaa qof walba mansabkiisa iyo magaciisa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa horta mahad leh marka koowaad maanta iskugu keenay sanad guuradii 700aad ee ka soo wareegtay muxuu 1984kii maalintii burcaduuray oo lagu soo ururiyay dhammaan shuhadadii ka soo qayb gashay dalka ee naftooda u huray ee haldoorka ahaa ee dalkan inaga baxay inagu jooga dhiiga inagu jooga oo maalin qaaliya ayaa horta ayaa mahadda labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mujaahid Musabbix Cabdi ayaa mahadda labaad leh oo inoo suurta gasheen xafladan aynu quruxda badan leh aynu maanta xusayno oo suurta galiyay waxaan kaloo u mahad celinayaa urur weynaha naaw oo isaguna iyo hooba nagala qayb gala xafladaha noocaas ah ee halgankii SNM oo dhammaantood iyo mujaahidiintii naafada ahaa ee dalkan ka soo qayb galay ee ku soo naafoobay ee ku soo dhaawacmay dhammaantood ka nool iyo ka naafadaaba iyo agoomihii iyo hooyooyinkii ku gablomay ee inamadoodu ay ku dhintaan halganka ee haldoorka ahaa ee ka dhidhiyay taliyihii macaangaga ahaa ee dalkan ummadda Soomaaliyeed dhibta badan u geystay iyo Somaliland gaar ahaan cadaadiska badan ku hayay loo adkeysan waayay markaa inuu ururkani samaysmo uu la dagaalamo uu ka xoreeyo nimankii naftooda u huray ee dhammaan muxuu ahaa ka nool iyo ka dhintayba mujaahidiintii Allah u naxariisay ku soo shiiday dhammaantood ka maanta halkan jooga ee noolina wuxuu ugu talagalay inuu noolaado ama maanta halkan isu soo taago uu ka hadlo ugu talagelin ee inuu dhinto muxuu ahaa dalka u shahiido oo macaangaga dalka ka saaro ayuu qof waliba ugu talagalay marka ilaahay baa nooleeyay ilaahay ayaa nooleeyay marka waxaan leeyahay mahadda dadkan waan mahad celinayaa dhammaan maanta sharaftana waan mahad celinayaa maayarka caasimadda oo isaguna naga qacan muxuu ahaa aanu ku soo casuunay malaada hawlaha ku badane sida noomu wanaagsan waan mahad celinayaa dhammaan mahadnaq ka bacdi markaan intaa ka gudbo maanta waxaynu xusaynaa maalintii shuhaadada ururkii SNM ee dalkan u soo halgamay ee dhiigooda inoo shubay ee in muxuu ahaa maanta inaga hooseeya ee xabaal inoo galay ayaan ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay maalintan waa maalin taariikhi ah waa maalin weyn waa maalin ummaddu leedahay waa xornimadii Somaliland dadkii u soo halgamay ee dhiigooda u shubay ee muxuu ahaa in naftooda u huray inta noola wax ilaahay iyaga ha u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto inta noola waxaan leeyahay sharaf iyo cisi ku noolaada waayo ilaa madaxweyne ilaa ka ugu hooseeya waxa ugu talagaleen qof waliba inuu maalinta dadkiisa ka xoreeyo wixii ay dalkan ku hayeen ee mushkiladda ahaa inay ka xoreeyaan marka maanta waxaan leeyahay waxaan leeyahay halkaas sawirad ku qariseen halkan kalena sawirad ku qariseen ka qaada nimanka marka waxaan leeyahay in yarba dib ugu noqonayaa taariikhdii ururka SNM iyo dimuqraadiyadda maanta ay dadku ku noolaanayaan iyo halkay maanta ay u socdaan inayna Somaliland ka abuurmine ay ka soo abuurantay intuu halganku socday halka shan gudoomiye isbedelay oo SNM oo doorka ku qoran Axmed Jimcaale guuleed ugu horeeya Sheekh Yuusuf ku xiga Cabdulqaadir Koosaar ku xiga Axmed Maxamed Siraayo madaxweynaheenii hore ilaa cimrigiisa ha dheereeyay ayaa isaguna gudoomiye afraad ee ururka SNM waxa ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo isna halka ku jooga oo guusha maanta
ilaahay ku guuleeyey inay Somaliland maalinta muxuu ahaa koob iyo sagaashankii aynu ka xoreyno dalka faqashii ma shahaysatay halkana waxa ku jira shan madaxweyne oo iyaguna halka ku sawiran waxa ugu horeeyay madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland ee waqtiga ee goolisku taaga Somaliland markii lagu dhawaaqay madaxweynihii ugu horeeyay oo madaxweyne ku xigeenna u ahaa madaxweyne Xasan Ciise Jaamac ilaa cimrigiisa isna dheereeyay isagana ilaahay ha u naxariisto Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa ku xiga isna halka jira madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland محمد حاج إبراهيم عقال ويسقون سيستم كدولة نمو إنه تاجي يا نظام كحسبية وبلان إنه ما أنت عدوان با أيو تطمسه أي ما أنت نوى لبا وسع صدوبيو نكي إنه هرجليه سلوحها محمد حاج إبراهيم عقال النظام كدولة نمو إنه سورة جليه ما أنت قروح لا يوم ما شاء قروح لا بلان له إنه كسرنا هاي إنه نبت إنه سمي وحكوحجة مدحوين الظاهر يا لكاهن ويسونا كسنتان ديمقراطية Somaliland كسنتان ونظام كي حزبية بلان يا ديمقراطية يسونا هرجليه أي يسونا مدحوينها صدحاوة وحكوحجة ويسونا هالكا كشرة وأما مدحوينها أفراد أحمد محمد سيرايو إلى أمريكا هذا ومشاهدها وصوت قالماي والناس ورتجليه هرمركا يما تعالك إنه مرينه الناس ورتجليه أي سجون محو أي كشرة وحوجودهم بيا مدحوينها ما تتلقايا ومحو هاي مدحوينها شنابة ويسجون إلى أنه كره شيء إنه إلى كل ولاية وحين وصعنا اعتراف يوم مدح برنامج Somaliland إنه يسجون إلى كل ولاية أيام يسجون أورا شيننا أنت أمرك كجدبو وحن إيه راقبة بيربان كتريا ما هذا كان يدكوب بديه وحن لا ما أنت مالو وين بين حسنا ما أنت SNM بين حسنا ما أنت تلك الله صوت أنت بين حسنا مجاهدين تي محي ودنتين محي سكوا كلو جاوا عمين كفوا يوم محو نولي وحوي ما أنت تلك تاريخ أيين أوبها النحي إلا قرا تاريخي سو SNM إلا قرا ومحوها إلا أستيو ومحوها إلا هجاتيو أيين أوبها النحي مركب مدحوينها يا سويال مدنا يا دمان مشاهدين تماها دمان أمة Somaliland أوردن أيين أوتالا أو أوبها إن تاريخ لا أي قران ومحوها إلا هجاتيو أيين أوبها تاي سكدا إن تاريخ القرا nimankii ganacsatada ahaa ee tijaarteena ahaa ee muxuu ahaayay dalkan nimanka u soo shahiiday ee dhiigooda u horay ee howldoorkii ummadan ahaa halkii taariikhdooda lagu kaydinayay ee lagu ilaalinayay ayay maalin walba ay yidhaahdeen annaga halkan ku qurux badane hala nagu wareejiyo taasina waa ayaan daro halka waxa uga khayr badnaa oo uga wanaagsanaa ومحوها خير يكوهلين أجر يكوهلين إلهي يقولوانين إن يدك هذا كان وسواه الجميع أي وسوا باباي إن وحكا قبطان أو حاجاتيان مركا واحد كورانا يعني مركا ترى أرضك كان إذا كان كوكان عصانا إذا كان تاجرك إذا كان عين كنا أنا عشور بالله أنا قاضي عشور تبحث على ذيك السوي وحنا لا هاي مانت ونركا كعضينا يا وحنا الله ونعضينا يا عشور تلا إذا كقاضو بحسان عشور ما بحسان إنت يرى الله إذا كقاضو وحلا لقوا مامولا أو لقوا حاجاتيا أو محوها لقوا بحيا وحوي نبت قليلة أذكره ردان يا إذا مرة هل يا هبين إذين هيجن كأ نبت قليلة أذكره ردان أيا راسية ومحوها لقوا سبلا كرايا أو لقوا إلاليا نمانكا هل كان دحنت وأنا مكان مشاهدين بدن وسر أكيد أصوف فردة فرن توري كشران وأنا صوت قالوا ذلك هو قبتين ياجا اسكو حسارة وسر أكيد ياجا محو هاي صوت قالوا ماي ما تدنا مر كل كان عسدي كيداو محو هاي عشور بام بحيا عشور تيوسيا تلك يجنا عسكيس أيا وقول لاليا
dalka waxa yar uu bixiyo ganacsigiisa iyo nabadgelyadiisa uu ku seexdo ayaa lagu ilaaliyaa marka waxaan leeyahay waxa idinka khayr badan mujaahid muxuu ahaa qof wal oo ganacsada oo tijaar ah oo dalka wax ka heshay qof ninna dalka waxba lagu soo gelin qof dalka wax la soo galay ma jiro dadku anoo kale ahaayeen oo waxba haysan halkan ay ka heleen marka wixii dalkan ka hesheen dadkii dalkan u soo halgamay dib ugu celiya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.